xalay waxay ahayd habeen weyn oon la iloobi karin. waxay ahayd habeen shacbi weynaha reer Somaliland dhab ahaantii ku adag. waxay ahayd saacado nafhurnimo fara badan la sameynayay. waxay ahayd saacado aan la iloobi karin xanuunka iyo dhibta ay ku lahaayeen shacabka reer Somaliland. shacabka caasimadda Hargeysa, shacab weynaha Soomaaliyeed, dhammaan dhab ahaantii wadad goba, wadad habeenkii xalay ahaa gacan, af, adin iyo dareen kaga qayb qaatay. waxaana la hilmaami karin saxaafadda Somaliland oo dabcan warbaahinta si live aan ugala soconnay qaybaha kala duwan ee magaalada iyo waxyaabaha ka dhacaya soo gudbinayay. habeenkii xalay ahaa wuxuu ahaa habeen shacbi weynaha reer Somaliland ay sameeyeen nafhurnimada ugu ballaadhan karaankooga wixii awoodooda ah ay la qaybsadeen walaalahooga dhibaataysan kuna xakameeyeen dabka. run ahaantii waxay ahayd habeenkii xalay habeen Hargeysa cadday, habeen Hargeysadii caasimadda Somaliland, habeen Hargeysadii ganacsiga, habeen Hargeysadii dadka qalbiga fiican ay ku noolaayeen. qayb ka mid ah ay musiibo la xalli soo qayb saartay, ay soo food saartay. Hargeysi dib bay u dhismi doontaa, weehaan uu qurux badnaan doonaa, hantida Somaliland oo soo kaban doontaa. haddii xalay Hargeysa qayb ka mid ah gubatay, maahan kaliya inay ka gubatay Hargeysa, maahan kaliya inay ka gubatay degmada Waaheen, ama waxa weeye qaybtaas bartanka centraalka magaalada ee waxay ka gubatay dhammaan ummadda Somaliland meel kastay joogaan. waxay ka gubatay ummad weynaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan. waxaan la qaybsanaynaa walaalahayaga reer Somaliland, waxaan la qaybsanaynaa ummad weynaha reer Somaliland iyo shacabka dabcan in ay ka soo kabtaan dhibaatadii xalay dhacday. xukuumadda, waxgaradka, cuqaasha, dhalinyarada, culimo-diinka run ahaantii waxay sameeyeen nafhurnimada ugu ballaadhan ee qof aadamaya oo hantidiisa ku badbaadinsan karo, iyagoo inta karaankooga ah kala duldhacay inay xakameeyaan. askartii xalay, shacabkii xalay u soo jeeday saacad ilaa misaacadeeda kale dhab ahaantii waxay ahaayeen shacab geesi ah, waxay ahaayeen shacab nafhurnimo muujiyey, waxay ahaayeen shacab caasimadooda u dadaalay inay wixii tamartooda ku xakameeyaan. dhab ahaantii reer Somaliland, xisbiyada mucaaradka, kuwa siyaasiyiintu waxay ka markhaati kaceen, waxay muujiyeen gobonimada xilliga ay dhibtimaado, iskarabtaagitaanka iyo waxa la isku yahay inuu ka wen yahay waxa la isku hayo. dabcan shacbi weynaha reer Somaliland waa shacab goba, shacabka Hargeysa waa shacab xariira, shacabka Hargeysa waa shacab ka markhaati kacaya dhibaatadii xalay. dabcan Hargeysa dib bay u dhisi doonaan, Hargeysa way qurux badnaan doontaa, Hargeysa weehaan wuxuu kusoo noqon doonaa weehaankii la yaqaanay, suuqii suuq shiraaqle quruxda badnaa waxay noqon doontaa suuq ka qurux badan sidii hore insha Allah. ilaahay waxaan uga rajaynayaa ummadda hantidoodu ku basbeeshay inuu ilaahay hanti ka qurux badan ugu bedelo, hanti ka fiican ugu bedelo, maalinmahaas foosha xunna ay ka soo kowdaan ayaa ilaahay uga rajaynayaa. maayir Cabdikariin Axmed Mooge ciidanka damisku dhab ahaantii dabcan way dadaaleen, iyaga laftarkoogu waxay muujiyeen nafhurnimo halkii ugu sarreysay. saacad min saacad intii ka dambeysay iyagoon wax cunin, iyagoon afkooga wax saarin, iyagoo hantida ummadda walaalaha ee masaakiinta ee reer Somaliland doonaya isku taraygaraynaya inay badbaadiyaan. haddaan qurba joognahay dabcan dareenka xalay waanu qabnay. habeenkii xalay ahaa wuxuu ahaa habeen aananu seexan, lamanu soo gaari karayn adin, laakiin af iyo ducaan la soo gaari karaynay. ilaa haddana waynu la garab taagannahay walaalahayaga reer Somaliland. soo kale waxaan ku faraxsanahay Hargeysa inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka nasiibku isiina cagahayga soo dhigo aan ku faano ayna tahay magaalooyinka aan ugu jecelahay Somaliland. aan ogahayna shacbiga ku nool inay yihiin shacab xariira, shacab nasaba, shacab dhibaato kasta oo soo food saarta dabcan ka soo kaban kara. Somaliland kale waxay noqonaysaa cashir meelaha isku raranta ee isdulsaarka ee afka iskula jirta, hadday noqoto meelaha lagu ganacsado iyo meelaha ka duwan ee ganacsiga ka baxsanba. waxaan rajaynayaa inuu noqdo cashir ay Somaliland kale ka qaadato, ay ka barato, ay ka taxadarto oo dib u soo noqonin. shacabka Somaliland waxaan u rajaynayaa Ramadaan Kariim baan leeyahay, shacabka Soomaaliyeed dhamaantooda Ramadaan Kariim baan leeyahay. maalmo qurux badan baan dhammaantiin ni rajaynayaa, iyo waxaan rajaynayaa weehaan qurux badan, Hargeysa qurux badan oo markale dib u soo bilaaban.